Hello forever family meel kasta aad joogtaan aad baan idin salaamayaa waxaan idin leeyahay kaliya laab waa mar kale iyo Leader Axmed Daawud oo idin leh wada shaqayn wanaagsan runtii waxaan aad u jeclaanayaa inaan idin la wadaago oo aan idinku baraarujiyo waxaynu ku jirnaa last month bishii ugu dambeysay maalmihii ugu dambeeyay June ayaynu ku jirnaa sidaas oo ay tahay waxaynu soo qabanay shaqo qurux badan waxaynu soo qaadanay maalmo qurux badan waxaynu soo qaadanay isbuucyo qurux badan waxaynu maraynaa gabagabadii bisha June oo aynu ku jirno maanta 27keedii waxaan markaa aad u jeclaysanayaa inaan idin la wadaago oo aan idinku dhiirigeliyo saddexda shay ugu dambeeya bisha inaynu qaadno tallaabooyin waaweyn oo runtii macquul ka dhigi karaya inaynu xeegada dhanka kale u rogno oo aynu gaarsiino meel runtii lagu farxo laynagu hambaliyeeyo laynagu sii dhiirigeliyo dabcan sacabkana laynoogu tumo adiga ayaa isu haya inaad u diyaar garowdo inaad saddexda cisho ka dhigato noloshaada saddexda cisho ugu dambeeyay noolaan lahayd si ay taasi haddaba u dhawowdo waayo qofku marka uu noloshiisa yiraahdo waa saddexda cisho ugu dambeeyay muxuu sameyn karaa wax kasto wanaaga wax kasto guula wax kasto shaqo uu qaban kara ayuu qabtaa sidaa darteed waxa ay nala gudboon inaynu ka dhigano daqiiqadihii ugu dambeeyay nolosheena si aynu macmiil badan u kasbano si aynu team adag u dhisno si aynu u guuleysano oo lacag badan u helo bishan dhamaadkeeda bisha soo socota dhexdeeda si aynu leefalo waaweyn u galno waxa ay nala gudboon bisha cusub ee imanaysana inaynu ku qaabilo soo dhaweyn diiran inaynu ku qaabilo qorshayaal adag inaynu ku qaabilo xarumaheena oo camiran traininadeen iyo sidii loogu talagalay noogu socda waxaan aad ugu hambaliyeenayaa tiimamka Muqdisho oo aan leeyahay Forever Live in Muqdisho hambaliyo halka ka sii wada kana faa'iideysta leaderada idila jooga dabcan waxaad joogtaan magaalada u qiimo badan dadkeeduna ay businesskeena u ooman yihiin waxa kale oo hambaliyeenayaa wadanka dariskeena Djibouti oo aan leeyahay tiimamka Djiboutina fadhiga ka kaca insha Allah waxa ay noo balanaa guul far badan iyo baraare waxa kale oo hambaliyeenayaa dhamaan daafaha caalamka oo dhan Forever Family dabcan gaar iyo islaamba afrikaan iyo carab iyo soomaaliba waxaan leeyahay we are in forever family waan wada guuleysanaynaa insha Allah guul baan ay noo balana iyo inaan ka faa'iideysano dhowrka cisho ugu dambeeyay June ee aynu ku jirno thank you